Garas waa magaalo madaxda gobolka Steiermark iyo caasimadda labaad ee Austria. Waxay ku taalaa labada dhinac ee webiga Mur ee koonfur bari Austria. Waxay qiyaastii 150 kiiloomitir koonfur galbeed ka xigtaa magaalada caasimadda ee Vienna. Magaalada labaad ee ugu weyn dalkan ayaa ka mid noqotay magaalooyinka kobaca dhaqaale iyo midda horumar sameysay 10kii sano ee la soo dhaafay. Xuquuqda magaalada ayay heshay qiyaastii sanadkii 1240 waxayna sidaasi ku noqotay xarunta gobolka Steiermark intii lagu jiray qarniyada dhexe. Sanadkii 1999 ayaa lagu daray xarumaha lagu keediyo dhaqanka iyo taariikhooyinka ee hay'adda qaramada midoobay ee waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka UNESCO. Taasi way ku mutaysatay soo jiidashada dadka dalxiisayaasha maadaama ay ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan Austria. Tirikoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay koodii bishii koowaad ee sanadkan sii dhamaanayo ee 2022 ayaa lagu sheegay inay ku nool yihiin in ka badan 295,424 oo qof. Waxayna sidaasi ku noqotay magaalada labaad ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Austria. Garas waxay caan ku noqotay bandhig dhaqameedyada waxaana loo magacaabay inay tahay caasimadda dhaqanka ee Yurub sanadkii 2003. Magaalada Garas waxaa loo yaqaanaa xarunta waxbarashada ayadoo leh ilaa 6 jaamacadood oo laga helo kulliyado kala duwan. Magaaladu waxay hooy tahay in ka badan 60,000 oo arday. Xarunta taariikhiga waa mid ka mid ah xarumaha magaalada ee sida wanaagsan loo ilaaliyo ee ku yaala bartamaha Yurub. Kala duwanaanshaha aan la rumaysan karin ee waxyaabaha cajiibka ah ee lagu sameeyo Garas ayaa ka dhigaya meesha ku habboon safarka dalxiiska ee loogu tago qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkan Austria sida magaalada Vienna iyo Salzburg. Garas waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qiimaha badan in lagu arko Austria, gaar ahaan magaalada taariikhiga ah ee aadka u soo jiidashada leh oo leh taawarka caanka ah ee Clock Tower oo ah astaanteeda caanka ah ee lagu garto inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiisayaasha badan ay soo gaaraan.